الرحمن عبد الله محمد علي قاسم رجل الشركه والقصليس ولا العبينيس هاي كلها تحي والله هدي رجل وفي عنتهاي مرنا هدي رجل حام شيء كنا صوت حوي وحاولنا نبين رجل تشتو دان نوين رجل مرني معنا رجل وفي عنتهاي سوماليا ترتيب إن شاء الله بيبقى سنيسا ونصح نيسا إن شخصنا كهر ما تملك عمان شغلنا إن شاء الله سنة الدنبئ كاسي الدنبئية راح نشرجينا أنا كاسي وأنا كسناته الصومالية أنا هرمت إن شاء الله ونقدر نحكينا. مدحوينه دولتي صوماليات iyo maamul goboleedyadii madaxweynayaashii wad ku dhantiin shirka waxaan moodaa in dash caalamku ay rabto in Soomaalida wixii u qabsoomay inta la taageerayay wixii u qabsoomay la arko maxaa soo bandhigtay marka laga tago inta hadda sheegtay qodbarihiina ku jiray والله هذا برنامج بدن بالغا هذا waxa laga hadlay security ee nabadgelyada iyo wax looga qaban karo waa dhigaysatay madaxweyne Shariif Xasan aad barinta uga hadlay Axmedow waa ka hadlay waxa laga hadlay soo kala dhaqaalaha iyo sidii loo sameyn lahaa horumarinta dhaqaalaha ah wala socotaayo IMF iyo World Bank barnaamij fiican bay ka wadaan Soomaaliya waxa laga hadlay sidoo kale arrimaha siyaasadda doorashada 2020 waxa laga hadlay dimuqraasiyadda wax badan baa laga hadlay marka shirku waa tirabadnaa waxyaabo badan oo kala duwan baa laga hadlayay mid walbana waxa qabsoomay iyo waxyaabaha challengeska oo dhibta hortaala ayaa laga hadlayay caqabadaha sida loo gudbi lahaa marka kulay talaal isugu yimid adduunku waa ku dhan yahay Soomaaliya waa ku dhan tahay aan rajayna wax fiican insha Allah madaxweyne Cabdulle Maxamed Ali Gaas ilaa 800 qof in ku dhow Soomaaliya ayaa hadda toos ku daawanaysa kuna dhageysanaysa madaxda Soomaaliya marka qaar ku xalaya markii wadanka lagu laabtana khilaafiyaad marka qaar ka dhex jira waxba la isku diidaa laakiin halkaan markii la yimaado waa la qosliya waa shariisaan adinku midaysan baa joogtaan dhalilahaas ka waran madaxweyne maxaa dhacay Soomaalidu soo wax naga ma dhaxeeya dad wax ka dhaxeeyaan wax qabsan ila aragtay Soomaalidu waxay tiraahdaa waalay laba dhaxal ku diraysa maxaa shaqtii lama yiraahdo waxa weeye Soomaaliya baa nahay dal baa naga dhaxeeya dad baa naga dhaxeeya waa la isqabanaya marka qaarkood laakiin waxa la rabaa isqabadku inuu san noqon caqabad laga gudbo waayo laakiin waa la isqabanaya raya loo kala duwanaanaya fikirka loo kala duwanaanaya laakiin in the end ugu dambeynta waxa la rabaa in waxa laga heshiyo la isu garaabo cidii loo garaabi karo loo garaabo ka bacdina waxa weeye shaqada baa ka muhiimsan waqti hadalkani nin u shaqeeya ma jiro nin gurigiisa ka shaqeeyana ma jiro waxa loo shaqeeyaa maslaxada dalka weeye marka maslaxada dalka lagu bushiyaa muhiim ah taasoo marka lagu kala arko duwan yahay laakiin in the end saaxiibana hore la soconay Allah iga raali madaxweyne su'aashii ugu dambaysa waxa jirta arrin maanta la soo hadal qaaday ku saabsan waqti korors waan ognahay maamulkaaga doorasho ku soo fool leh dhinaca kale dawladda Soomaaliya ayaa laftigeeda la yiri muddo kororsanaysa la soo hadal qaaday kasoo ra'iisul wasaare ku-xigeenka uu beeniyay oo yiraahdo waxa kama jiraan arrimahaasi oo kale maxaa keenay laga hadlo wallahi ma ku fikir meeno cid ku fikiraysa inay jirto umaleyn mayo doorashooyinkuna waa dhacayaan mana garanayo warkaan meeshu ka yimid laakiin de haddii tuunkaas uu jiro in meesha laga bixiyo waa loo baahan yahay oo la cadeeyo dibna ma jirto qof xoog ku joogi kara kursi ma jiro dadka rabitaanka shacabka lagu joogaa hadaad qofkii diyaar u ahana waa inuu tartamaa qof aan diyaar ahayn inuu meesha baneeyo qof kale oo imaanaya yimaado way